xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wardheer waxaa ka bilowday adeega qalliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ah. Adeegkan qalliinka iyo daaweynta indhaha oo iska kaashadeen xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida cusbitaalka guud ee magaalada Wardheer iyo dhakhaatiir mutadawiciin ah oo u dhalatay deegaanka Soomaalida uu hogaaminayay Dr. Cabdixakiin Axmed iyo xirfadlayaal caafimaad oo ku wehelinaysay ayaa cusbitaalka guud ee magaalada Wardheer waxa uu ka socon doonaa muddo 5 maalmood ah kaasi oo loogu talagalay in adeegan looga faa'iideeyo bulshooyinka ku dhaqan gobolkan Doolo. Haddaba shacabkan adeegyada kala duwan la siinayo ayaa isugu jiri doona qalliin, daaweyn iyo siinta muraayadaha dadka argooda daciifay. Dr. Cabdixakiin Axmed oo hogaaminayay dhakhaatiirta fulinaysa barnaamijkan adeega qalliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ah iyo maareeyaha cusbitaalka guud ee magaalada Wardheer Dr. Cabdinaasir Cali Abshir oo SRTV u waramay ayaa shacabka ku dhaqan gobolkan Doolo ugu baaqay inay ka faa'iideystaan adeegan muddada uu socdo. magacaygu waa Dr. Cabdixakiin Axmed maanta waxaan joogaa magaalada Wardheer. waxaan ka bilownay campaign indhaha lagu jeexayo dad gaari 200 qof iyo intii ilaahay yiraahdee iman doonta u baahan igana daaweyn oo aan qiyaasi karin. waa 16 Hidhaar waana maalin Isniin ah. insha Allah shaqadaas way noo bilaabantay si weyn oo la xalay waxaan noo soo dhaweeyay maamulaha cusbitaalka iyo shaqaalaha iyo maamulka deegaanka. shaqadana insha Allah hadda way noo bilaabantay maanta oo shaqadu ay koow tahay. insha Allah wixii ka soo baxa isbuucaas intaynu wadnana waa wada joognaa insha Allah. waxaan rajaynayaa wax fiican oo qurux badan inay ka soo baxaan oo bulshada iyo dadka iyo deegaanka ay ku dirsadaan insha Allah taala. waxaan rajaynaynaa kolba waxay ku xiran tahay imaatinka dadka inoo yimaadaan oo population ku xiran tahay. haddii population ku badan yihiin muddo waxaan kusoo gabagabin doonaa 5 maalmood haddii la yiraahdo. maanta oo Talaada ah 16 bisha 3 2018 waxaa si rasmi ah uga bilowday hostaalka Wardheer ololihii indha fiiqada iyo daaweynta bilaashta kaasoo si rasmi ah uga bilowday saaka hostaalka oo lahana socon doona in muddo ah ilaa iyo 5 cisho. ayaa waxaa loo qorsheeyay in looga faa'iideeyo bulsho badan oo la dhibaataysan aragga isla markaana ay fursad u saamixin inay adeega caafimaad u doontaan xarumaha kala duwan ee dalka iyadoo jirto xaalad dhaqaale iyo mid siyaabo badan ay ugu suurtoobi weeday. saaka magacaas si rasmi u bilowday oo lahaas iyadoo daweyntii iyo baaridii iyo qalliinkii la isku dhaxwado isla markaana mar horeba la bilaabay bukaanadii buuxiyay shuruuda qalliinka isla markaana si fiican u socdo ololuhu. si guud marka waxaan bulshada mar labaad aan ogeysiinaynaa in laga faa'iideysto isla markaana maalmaha ay joogaan tiimkan tabarucaadka ee meesha fog inooga yimid looga faa'iideeyay cid kasta oo la dhiban xanuunka indhaha oo daweyn u baahan oo qalliin u baahan diiwaangelinta inay weli ay socoto. marka saasaan insha Allah bulshadan ku wacyigelinaa ku ogeysiinaa hadda leen hadda saaka mar hore saaka waa la bilaabay diiwaangelintu sii horeysay oo dad markii horeba la sii qorsheeyay oo shuruudaha sii buuxiyay oo sii maray wixii screen jiray kuwaas hadda qalliinka la bilaabay. qorshuhuna waxa weeye in maalintii ugu yaraan 50 qof ugu yaraan in maalintii la qalo oo kuwa shuruudaha buuxiyay ah. waxaa dhex socda taas in dad badan oo daweyn u baahan oo muraayado u baahan iyadana in ayagana la siinayo oo qaybna ka socota qaybtii baaritaanada iyo daweynta qaybna ka socota qaybtii qalliinka bukaanada buuxiyay shuruudaha loo gudbinayo dhakhaatiirta qaybta qalliinka joogta.